barnaamijkeenan ayaynu diiradda ku saari doonaa hadalladii indhaha caalamka soo jiitay ama dadka muslimiinta ee ku nool caalamka ee uu fagaaraha qaramada midoobay ka jeediyey madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan. hadalladaas oo ah hadallo xaqiiqa marka aad dhegaysatidna aad qiiran doontid. haddaba hadalka madaxweynaha turkiga ayaynu u bedeli doonaa af Soomaali intii ugu muhiimsanayd ee waxyaabo kaga hadlay. Güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili yeni bir planı hayata geçiriyoruz. Ülkenin toprak bütünlüğü esasına dayanan, halkın demokratik taleplerine saygı duyan, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye'nin inşası yolunda atılacak her adımın destekçisiyiz. shaqada UN-ka waa mid howlgab ah. haddii indha aad leedihiin maad ku eegtaan dhibta ka socota Burma, maad eegtaan gumaadka ay geystaan diyaaradaha darooniska. anigu wax kasta waan fahamsanahay, laakiin runta ayaan idiin sheegayaa, waan idinla socodsiinayaa, laakiinse xaaladiina waan ogahay. Hizmetinden eğitime kadar sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını ülkemizi ziyaret eden herkesin takdirini kazanan bir standartta karşılıyoruz. Ciraaq, Burma, Afghanistan iyo dhammaan dhulalka islaamka waxaa qasaya waa dalalka sheeganaya dimuqraadiyadda la isku maamulo. reer galbeedka marka ay 2000 hal mar dilaan qaramada midoobay maalintaas ma shaqayso. Şehirlerimizde yaşayan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için kamunun, sivil toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın yaptığı muslimiinta Burma waxaa nolosha lagu qaasayaa ama lagu dilayaa dad islaam ah oo dalkooda jooga. 600 oo kun oo muslimiinta Rohingya ayaa u qaxay Bangladesh oo aan u haynin meel ay degaan iyo wax ay cabaan ama cunaan. wax eegaya ama wax ka hadlaya miyaad aragteen? miyay taasi gumaad iyo xasuuq ahayn? mise hogaamiyaasha islaamka waxay sameeyaan oo keliya ayaa dembi ah? girmiyor. Bunlar sadece yardım kuruluşları vasıtasıyla kamplarda bulunan oradaki insanlara gidiyor. islaamka Burma waxay ku jiraan xaaladii ugu darnayd. sidaas ay tahay qoraal la xarxareeqay ayay qaramada midoobay igu hadlaysaa ficilna male iyo jawaab. Yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo hal wadan oo keliya oo amarkiisa ay halkan ka socdaan. haddii miyaa uu dhaho waa maya, haddii uu haa dhahana waa haa. aaway dimuqraadiyaddii la sheegayey? ogaada, Turki ma ahan waddan qaadan kara go'aamada halkan lagu gaaro ee hal waddan dabada ka riixayo. Ve kalkınma yardımı faaliyetleri yürüten bir ülkedir. Sadece ülkemize gelen Maraykanka maslaxaddii aad buu uga fekeraa maslaxaddiisa, laakiin tan wadamada islaamka kama fekero. inuu kor ka maamulo ayuu doonayaa. taasina ma aha wax dimuqraadiyad caadi ah. Trump waad arkaysay khudbadiisa ku aadineed North Korea ama waqooyiga Korea ee uu ku lahaa burburinaya Koreada waqooyi oo aaway qaramadii midoobay. halkee jireen markaa? xarintoodii dagaal miyaa lagu maleegayay? waad arkaysay wuxuu ku hadlayay Trump markan kaga hadlayay. cid ka xumaatay ma jirtay? Somali konusunda yaptığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten benzer çalışmalara örnek olacak düzeydedir. xaaladda Soomaaliya ka jirta waad ogtihiin iyo sida loo dhibaateynayo dadka muslimiinta ah ee ku nool Soomaaliya. miyaday qaramadii midoobay miyay ka hadashay maalin? Dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla bu alanda rakam olarak dünyada 2. sırada, milli gelire oranla da 1. sırada yer almaktadır. Halbuki Türkiye arrimaha dagaalka marka laga hadlayo yaa si aan dagaal geli karin waqtigan. xitaa waddanka liita wuu dagaalami karaa qadiyadiisa iyo dhulkiisa. sanadka dambe hal la xidho halkan qaramada midoobay. waad aragtaan xaaladdeeda. bilen 6 ülkeden biri olmuştur. Görüldüğü gibi ülkemiz genel kurulumuzun waxaan rajaynayaa in waxa aan ka hadlayo la xaliyo. haddii aysan taasi dhicin, fadlan inoo sheega halkan sanadka dambe in la iska xidhi doono. yolumuza devam edeceğiz. alle ayaan ka rajaynayaa, aniga ayaana arrimaheena
iskaga filan cid u baahan ma jirto marka xaqiiqada laga hadlo hogaamiyaasha islaamka halkan waxaa fadhiya hogaamiyaal islaam ah waxaan doonayaa inaan khudbadan uga faa'iideysto war ogaada dal kale aayihiina kama shaqaynayo ee idinku isku tashada turki wuxuu diyaar u yahay inuu difaaco wadan walba oo dhibaato lagu hayo tusaale ahaan islaamka buurmo oo kale wallaahi in aan ku shaqayn doonin wax maskax kale iyo amar kale oo gadaal laga riixayo hadalada turkiga ee ugu muhiimsanaa madaxweynaha turkiga ayaa soo jeestay khudbadii dadkii muslimiinta ahaa ee caalamka ku noolaa fadlan Shargire ve Al Jazeera News arayı uygun muhimsana ediyorsa Türkçe. Militanını etkisiz hale getirdik. Teröristlerden temizlediğimiz bölgeye 100 bine yakın Suriyeli geri dönerek yerleşti. Fırat Kalkanı Operasyonu bölgenin işgalinden bu yana DAEŞ'e karşı elde edilen en büyük başarı. إسرائيل ما بودين بريد حيثو مرتكما فايتين وابقوا اليهودين أكبابيرنا بركوا في راي برقا له Yapıyı değişti.